xildhibaanada ka soo horjeeda mooshinka gudoomiye Jawaari laga gudbiyay oo warbaahinta kula hadlay Muqdisho ayaa eedayn u jeediyay taliyaasha ciidamada dalka Soomaaliya waxayna ku eedeeyeen inaanay dhaxdhaxaad ka ahayn xaalad siyaasadeedka dalka uu marayo. Geesta kale xildhibaanadan waxa ay beeninayaan eedayn gudoomiye Jawaari loo jeediyay oo ahayd in ciidamo dheeraad ah uu la galay gudaha xarunta golaha shacabka oo kuwan xildhibaanadii la hadlay warbaahinta. waxa kaloo maanta meesha ka dhacay oo foolxumo qarankan ku ah in ciidamadii qaranka ee kala duwanaa ay dhaxdhaxaad ka noqon waayeen arrimaha siyaasadeed oo ay dastuurkii baalmareen. dastuurka iyo nidaamka dimuqraadiga ah aynu qaadanay wuxuu dhigayaa in ciidamada qaranku ay dhaxdhaxaad ka noqdaan oo aanay ku milmin arrimaha siyaasadda ee dalka ka socda. maanta iyo intii hawlahani ay socdeen labadii usbuuc ayna soo dhaafay ciidamada qaranku dhaxdhaxaad kama ay ahayn arrinta siyaasadeed ee dalka ka taagan. waxaa dhacday xataa in ciidamada qaranka xildhibaanadii matalayay beel ahaan ay kasoo wada jeedeen ama jif ahaan ay kasoo wada jeedeen loo diray oo xafiisyadooda ugu yeerayeen oo ay ku qasbayeen inay taageeraan mowqifka xukuumadda. sidaana ciidamada qaranku dhaxdhaxaad kuma ahaan karaan, dastuurkana waa baalmarsan yihiin. taliyaashii ciidamada ayaa soo galay oo qolkii guddoonka uu ku jiray galay. annaga waa soo baxnay ani dhowr qof meesha aan daba galnay markaan aragnay waxay bilaabeen inay la murmaan guddoonkii waxayna ku murmaayeen ciidanka aad soo gelisay ciidankaagi ah amar uma qabtid oo ciidankaas meesha ku jiro ad dood dheer kadib marka guddoonkii wuxuu u cadeeyay in uu ciidamadiisa ilaaladiisa asaga uu mas'uul ka yahay oo guddoonkana asaga mas'uul ka yahay. waxay isku dayeen inay ciidankii ka qaadaan. waxaa kaloo dhacday markay murmeen kadib ciidamadii taliyaashii way iska baxeen laakiin waxa aad u fool xumeed guddoonkii lagu eedeynayo sideed ciidankaaga u soo gashan kartaa ilaaladaada. ilaaladiisana ma ahayn ciidan hub wata ciidanka hubka wata oo ilaaladiisa mar walba banaanka meeshay joog jireen ay joogeen ama kor ha koraan ama banaanka joogsadaano laakiin ayaga waxay ku doodayeen totally inuu ciidan la'aan ahaado. sidee ku dhici kartaa in guddoomiyihii baarlamaanka oo sharciyan ah in banaanka looga soo reebay ciidankiisa oo soo lugeeyo dambi weyn oo laga galay waaye. xiisadan siyaasadeed ee ka dhex oogan golaha shacabka iyo xukuumadda ayaa ah mid cirka isku sii shareeraysa waana markii ugu horeysay oo Soomaaliya marxalad noocan oo kala ah ay wajahayso siyaasadeeda. Nuure Maxamed Cali, Hon Cable TV, Muqdisho.